Khaliif Maxamed Warsame Khaliif Xinwaal oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland ayaa ka hadlay eedeymo maalintii shalay ahayd ay xukuumadda u jeediyeen qaar ka mid ah odayada iyo waxgaradka degmada Nasiye ee gobolka Togdheer halkaasi oo uu ka taagan yahay muran dhanka maamulka degmadaasi ahi. Siyaasi Khaliif Xinwaal waxa uu ugu baaqay bulshada degmadaasi wadadaga inay ka heshiiyaan hawsha degmada ka taagan. waxaan ka hadlayaa maanta shir jiraa'id oo lagu qabtay shalay magaalada Burco kaasoo daaranaa cabasho iyo eedeymo badan ku jireen. Shirka jiraa'id wuxuu daaranaa degmada Nasiye oo ka tirsan gobolka Togdheer halkaasoo deegaankii deganaa ay ka cabanayeen waxyaalo badan. waxyaalaha ay ka cabanayeenna ay hawada u direen oo ay hawada mariyeen halkii ay ka ahayd in loo maro wadooyin badan oo ka hagaagsantaa. degmada Nasiye waa degmo ka tirsan gobolka Togdheer oo ummad walaalaha oo ehel wada degan yihiin oo abti iyo adeer iyo ilmaadeer boyso ah oo is yaqaana. waa in kooban intaa koobani wixii ka xumaaday inay dhexdooda ka heshiiyaan aynu jecelnahay. haddii heshiin waayaanna in ciddii kale u dhow dhex gasho. shalay cabasha hawada la mariyey, maagis baa la mariyey sidii dadka loo kala fogeyn lahaa ama ummadaan ehel u ahayn inay wanaag iyo isu soo jiidaan wixii khilaafaad ah oo dhex ka noqdaan ay si caatifadaysan uga hadlay. arrinkaasna runtii dadku may jeclaysan. anigu deegaanadaasaan ka soo jeedaa, gobolka Togdheerna waan ka soo jeedaa, deegaankaasna waan ka soo jeedaa. nimankaa ka hadlayna waa nimanaan isku degaannahay. runtii waxay ahayd wixii khilaafaada iyo wixii dhibaataa gacmo gal jiro hoos baa loo maydhaa inay iyagu dhammaystaan. hadday dhammaysan kari waayaanna sidii xalal loo doono. magaaladan degmada Nasiye la yidhaahdo dowladdu wax badan bay u qabatay. hadday saldhig booliis tahay, hadday tahay xanaanadii, hadday tahay qaybtii caafimaadka, hadday tahay iskuulladii oo ay wada dhisteen deegaanku iyo wixii xukuumaddu ugu daraysayba si wada jira ayaa loo qaybsaday oo loo dhisay. hadday cid kale xitaa ka cabanayaan inaanay waxba la qaban, inay cabashadoodu iyaga ku ekaato unbay ahayd iyo degaankooda. markii aan u kuurgalay inaan dhib badan meesha ka jirin, waxoogaa yaroo saami qaybsiga iyo maamulka ah una ay dhex taallo, intaasna la dhammaynayo hawsheeda lagu guda jiro. qoladan shalay hadashay waxay doonayeen in xafladda la qabto oo walqashaa la sameeyo. qolada kale deegaanka la deganna waxay dhahaan walqashaa naga yara joojiyo aanu hawsha iyo khilaafaadkayga hala dhammeeyo. intaasaabuu arrinku ah arrin meel fog yaalla may ahayn. sidaasaanay maamulka gobolka Togdheer ay ku joojiyeen xafladdii walqasha ahayd. xaflad la joojiyey oo aan dib loo qabanayna maahe waa xaflad xilli kooban la joojiyey inta la dhammaynayo wixii khilaafka ah ee dadka walaalaha dhex yaalla. intaasay ahayd. intaasaa wax laga soo dhex saaray, intaasaa la siyaasadeeyey, intaasaa la buunbuuniyey. mana ahayn la buunbuuniyo. odayaashii deegaankaasaanu nahay, kuwan hadlaya odayaashoodii baanu nahay. waxaa la maagay niman mageynaa, oday maxamed kaahin baa la maagay. lagu yidhi degmadu hawl ka wada waa xaaraan waxyaalaha noocaas in lagu hadlo. ceeb baanay ku tahay degmada iyo gobolkaba iyo degaankaba. qofka mas-uulka in sidaa loo duro ee aan shuqliyo shaqo toona ku lahayn hawshaa ka socota Nasiye. ninkaasuna waa nin maqan oo arrin caafimaad ku maqan oo hawl caafimaad iminka muddo 3 bilooda dabadda uga maqnaa. dadkan durayana dadkiisi iyo deegaankiisa unbay ahaayeen. waxa ay ku durayaanna waxba kama jirin. wuxuu ka ogyahay iyo wuxuu ka geystay iyo wuxuu saameyn kaga lahaa toona ma jirin. arrin yaroo hoosoo reera ka dhexeeya nin soo dhex galayay ama in hawsha isagu
ku dhex jira ma ahayn arrinkaana annakaaba daadafaynayna innakaana ognaanu shaqo ku lahayn hawshanna way dhammaanaysaa labada reer oo walaalahana wixii dhex yaala si wanaagsan oo nadiif ah bilaa turxaana ayaa loo dhammaynayaa si aanay ku jirin mu'aamarad si aanay ku jirin kala jiidasho si aanay ku jirin in la siyaasadeeyo iyo si aanay ku jirin in la carqaladeeyaba arrinkaas sideedaa loo dhammaynaya waana dad ahelo walaalaha iyaan laga faa'iidaysan iyaan la isku dayin in la isku xoqo iyaan la isku dayin waxaan jirin in la sheego ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.